qofka markuu wuxuu noqonaa markuu u weynaado qof tayo leh aqoonna ka dhisan talana ka dhisan haddii markii la dhihi lahaa biyahan jannada laga keeno waan aamini lahaa saanu ahaa naiif macnaha astaana loo baahan yahay horta astaan aniga dabcan waxa laga inaan rabo in aan wanaagsanaado marka mar walba waxa la fiir dhalinyaradu maanta waxay u baahan yihiin ma ahan like dhaqaalo midka si loo eego waxay u baahan yihiin waxay tahay talo u baahan yihiin qof wax buu doonayaa qof wax buu doonayaa inuu kasoo yani ka bedelo kuma kusoo kordhiyo ama dadkiisa anfaco qof wax buu doonayaa ku takhasuso horta marka hore inaad heshaa waxa aad doonayso haddii aad hayninna waa inaad raadisaa ilaa aad kasoo helayso marka koowaad kadib waxaanay tala oo u baahan tahay tusaale oo u baahan tahay waxa u baahan tahay wacyi oo u baahan tahay waxa u baahan tahay qof aad ka shidaal qaadato xilliyada qaar markay xaaladda jiira kaa gasho dhada maanta sana ahay oo baltale isii qofka marka wuxuu noqonayaa qof tarbiyeysan oo xilliga 20 jir ahaa talo fiican la siiyey qof yani wacyi fiican haysto qof asay nafsidiisa soo tarbiyey waxyaalo badan ka tagi karo waxyaalo badan oo shahawaad ka tagi karo nafsidiisa nafsad tarbiyeysan oo nidaamsan leh qofka marka wuxuu noqonayaa markuu u weynaado qof tayo leh aqoonna ka dhisan talana ka dhisan marka waxa u moodaa in meesha u socnaa ka baxnay waxa ay suuraysanayna habkee qofka uu dabcan wax ku qaban kara ama sidoo hadafku ku gaadi kara oo oga hadalnay qofka inuu wax barto ko ama uu is cilmiyo bila quraanka soo ku dhahay yastabiyan alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulil albab usira ay wali waxa fikir on qofka un cilmiga leh ama qofka inuu wisdom kana kama imaado waxa waaye qof meel iska fadhiyo waxa waa taariikho ama dhacdooyin ama wax nolosha ku soo dhacay ama inuu ki imaadaan marka فقص العلم التفكيري صح سوي كلفانك المشاريع كتصال الخاتم صح ولكن كذا مصاريف دنا بدر صح نبدا صار كون هيسو صح بدك تصال الخاتم صح شان فلسيات اديو ولش هو كبسو صح بس نوبعين صح ما دام ديتا كسوني سنه عن تصال الخاتم صح hadii xumtahayna ka qaadato dadka waxay dhahaanba yani wax cusub adduunka ma dhaco yani history repeats itself wixii shalay dhacay marka diinta islaamka iyo wanaageeda waxa kamid ah maadaama awshad dhalinyarada ka hadlayno marka dhacdo mujtamacii dhibaato haysata soo wareeg dhibaatada soo falankayso halkii wuxuu soo laabanayaa tusaale ahaan waxbarasho wattaqullah wa yu'allimukumullah صح arzaaq wax ma baahan tahay من ويخرج من حيث لا يحتسب معاهد ويرزق من حيث لا يحتسب صح وما يتوكل على الله فهو حسبه marka wixii dhanaaba horta marka soo falakaas wuxuu ku imanayaa waxa isugu soo laabanaysaa oo horta ina halkii horta inuu islaamka joogo meel kale aan laga raadinin halkii uu dib wuxuu soo laabanayaa quraanku waxa waaye waxyaalo badan quraanka iyo sunnada nabiga waxyaalo badan noloshana ku dabaqi karno sallallahu alayhi wasallam ayaa jiro boqolkiiba boqol aan soo qaadan karno aan waxba nolosheeni aqli ahaan iyo garad ahaan ku kobcin karno laakiin dhalinyarada inta badan uma jeedo waan u socono in hadda kadib u soo leexan ma sheegin laakiin hadda wadadaas ma hayno marka inaan waxay noqonaysaa wadadaas isku soo leexino waxa isku sheegno yani halkaas lan halkeena wuxuu ku jira sunnada nabiga iyo quraanka asxaabtaada saameyn bay ku yeelanaysaa tusaale ahaan marka aan yaryarayn waalidku waxay dhahayaan asxaabtaada iska ilaali asxaab wanaagsan kaas uu xun yahay cunigaas uu xun yahay ma jeclina kuwa marka waxa laga yaabaa qof waalidku dareensan waxyaalo badan ama qofka soo koriyo ama abaha aad ama ehelkaaga uu ka aragsan yahay waxa laga yaabaa ku dhaho niyahow saaxiibada iska ilaali saaxiibada wanaagsanaa saaxiibkaaga dooro wixii oo laga markaa inaad arkisin inuu khaldan yahay المرء على دين قليله قليلها marka oodan dareensanayn markaas laakiin kadib aad dib ka dareento tusaale ahaan waxa dhacda saaxiibka wanaagiisa markuu saaxiibka wuxuu yahay waxyaalo xumaato oo badan ayuu faaxisho ku horseeday ku dhiirigelin markuu saaxiibka wanaagsan yahayna wanaag buu ku horseeday tusaale ahaan waagii hore shakhsi aan ma dareemi jirin marka la dhaho saaxiibkaaga inuu fiicnaada ayaa fiican loo baahan yahay qiimaha weyn ku fadhiya hadalka ma dareemi jirin laakiin marka soo weynaato dhalinyarada taariikhda saaxiibka wanaagiisa aniga waa inuu yahay tusaale ahaan yaan dareemay saaxiib wanaagiisa faa'iido u leeyahay jiro waxa jirta asxaabana quraan صح ما شاء الله وقران اقرس بدن yahay صح وإسامي انت قران اقرن jirin ka badan ma aqriya صح waxa dhacday
maalin baa waa isla bilownay uu iga hor dhamay quraankii wuxuu dhahay anoo wali dhamay inuu soo bilaabay waxaa dhahay xagee meesha suuratay bilaaha inaad dhaafto maarta ma shaki kaga jiro dheena dhaafay صح shaki ma kaga jiro dheena dhaafay aniga xanaaq sida dhaafi سوف نعيك وقت بدنا سجلنا waxaan u aqriyaa umananayaa muddo yar ayaan tan ku dhameeyay ku soo bilaabdana dhaaf isagii وناجي wanaagii sumaad uu isaamay si khayr uu isaamay asagoo dhameynta dhameeyay soo dhaaf isagii صح saan u sheegay kadib muddo kadib aan u sheegay dhaniyo maalinta saad dhacday waan ka xanaaqay ka xumaaday si aweenani waa inaan ka ha marka saaxiibka wanaagiisa khayr buu ku soo jiiday adigoo dareensan ama aan dareensanayn laakiin ku soo dhaweynaya khayrka wanaag ku jiidanaya saaxiibka doorashada saaxiibka oo qofka wanaajin karo sidoo kale ku xumaanay tahay maxaa lagu dooran karaa marka qofka saaxiibka ah caqabada waxaa waaye in maxaa lagu dooran karaa dhalinyaro markaan ama hadday imaato marka sidee yani qofka sidoo ku xulan karaa qofkii haddii aad garanayso wiil inuu yahay aad dhigayso wiil waa nin wanaagsan waxaad ka faa'iidina aad garanayso walo waa laga dhawaada laana waxaa la yeeshay saaxiibku waa yani haddii aad rabto inaad saaxiibnimadu waxay tahay aad fahanto waa qofka cadarkooda oo kale ama cadarku ku siini ama wuu kuu marini ama yani goonkaas iyo raaxadaas baa dareemi qofka inaad kaaga dhawaataa inaad u tagtaa inaad isbarataan way noqonaysaa inaad la hadasho qofkii aad yani marka hore dadka isku fahmaan way inay wada hadlaan inaad qofkii la hadasho aad xiriiriso kadib ma wixii aad rabtay ka faa'iideysaa markaas barataan كوز أستانا لو بهن يعني horta astaana أنا طبعا waxaa laga inaan rabo in aan wanaagsanaado marka mar walba waxaa la fiiriyaa yani aniga hadda saaxiibtinimada waxaan ku qiimeeyaa shakhsiga qof iga qiimo sar ma yahay horta goormaad dareemi kartaa caqabada waxaa waaye goormaad dareemi kartaa markaad tahay wiil dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro oo soo kacaysa oo alitin aad tahay ha saaxiibkaaga hadda waxaa laga yaabaa qof aad niyad ahaan psychological saaxiib ka dhigto qof aad tiktok ka taqaano oo mareykanka jooga suma fahmin marka ma xakameyn kartid dhalinyarada caqabadan haysta waxaa marka qofkii maba dareensanaba wuxuu u baahan yahay pressure zaxmadan ku jirta moogtahay maba dareensanaba waayo waxaa qofka role model ka dhiganaysa waxaa macquul tahay inuuna Soomaali ba ahayn oo 24 hour daawanaysa wixii niyad ahaan qofka saaxiib ka dhigtay ما يعني أنا waxaa ka wadaa saaxiib وقفك أخذك اسكت تقارين وإنه صاحباتين صح لكن صاحبك حلو يقان قفك أدمر والبنولش يسلق بسنة إنسان أو سنة سكور في الإنسان waxaan aaminsanahay inay أسلو ذا جوكتان أنا waxaan aaminsanahay inay jirin qaacido sax ah oo wiilkii yara ama gabadheeda soo kacaysa dal dhigi karo si aad mustaqbalka qof wanaagsan u noqoto saaysaasna aan waxaan islaahay waxaan noqon kartaa oo waalidkii iyo duco inuu duceeyo ciyaalkii صح oo duco lagu kabo صح 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 soo maamada sheegay qof yar ka talaabsado iyo talaka booda soo fahmin marka qof dhalinyarada ay waananayso aadada waxaan inuu la dareensanin baa laga yaabaa weena nagu dhacday inag dhan sababto 3 sano kadib wixii kula qumana hadda kula qumana كل ما قم أنا صح laakiin waalid mun waxa ku toosiyay adiga aqligaaga waa arag ويعني ماذا ha marka waalidka ciyaalka marka kornay loo duceeyo اوكي دنك اودا راه انا نيجيدي انيga kasoo qaad wiil 20 jir ah ama 21 jir ah oo raba in uu noloshiisa wax ka bedelo ama in uu dabcan uu arko nolosha ku jira in ay maaweelo tahay banooni soo dheel tiktok fiirso out aad in wax qiimo aysan lahayn marka wuxuu rabaa in uu noloshiisa wax ka bedelo ama cilmi ahaan wax isku soo ziyaadiyo ama diin ahaan wax isku soo ziyaadiyo ama yani qof tayo leh inuu noqdo wuxuu rabaa inuu dad barto ama inuu asxaab barto maxaa adiga dhihi lahayd waxan iyo waxan ama qof noocan raac aniga hadda iska bilaabo waxa dhihi lahaa qof adiga ka darajo sareeyo mar walba صح yani nolosha 3 dabaqo u dhaxaysa qof ka sareeyo qof aad isku level teen iyo qof ka hooseeyo isma fahmin qofka ka hooseeyo marka adigu wax ka baahan yahay in aad adiga wax siiso hadii adiga aadan waxaynin qofkan ka hooseeyo wax ma siin kartid qofka isku darajada tihiin oo qof isku meeltiin wax isku dareysin malaha marka qof adiga dabcan ka sareeyo qasmaha in cimri ahaan noqoto waxa laga yaabaa aniga adiga ina isku cimrinaay in asxaabna laakiin aad iga fiican tahay quraanka aa kugu daba xirta adiga oo yani kibirka iyo isla weynida ay ka baxdo oo qof walba koor fadhiisto in uu adiga ka tayo fiican yahay oo isku day kartina wax ka barto marka astaan noocaas oo kale ah oo aad dhiilad qofka saaxiib ku door maxaa horta kow ana waxaan isdhihi lahaa inkastoo dee mawduuca aan laga xaqliyo oo khibra aan ahayn laakiin maadaama dhalinyarana oo arrimaha dhalinyarana ka hadlayno adiga intii khibradaada ku xama intaad nolosha ka soo aniga waxaan isdhihi lahaa qofku kow wax ka bilowtaa rabitaankiisa inuu isagu isbedelo muu rabaa horta صح wuu rabo hadda ka soo qaad wuu rabaa صح hadduu rabo inuu isagu isbedelo noloshiisa u bedelo oo xag wanaag u bedelo jidad badan baa u furan صح
waxyaalo badan buu qofka samayn karaa laakiin waxaa lagu lumay waxaa waaye dhalinyaro isma dareensana isagoo duurka ku jira ayuuna isdareensanayn haddana صح marka qofku stepka koobaad ee isdhihi kara waxaa waaye wanaagaad u gaari kartaa waxaa waaye qofku inuu isdareensan yahay xaaladdu ku jiro xaaladdu ku jiro xaalad xun inay tahay inuu isdareensan yahay صح mar hadduu isdareensan yahayna waa maanta dhan waxaa ka hadlaynay dhalinyarada iyo yani caqabadaha taagan caqabadaha adiga see isdhigi karta oo laga bixi karaa ama qofka shakhsiga ah nin kale ka horeynaya maadaama uu wiil dhalinyaro yahay buugna uu qoray ha laakiin adiga achievementka nolosha wax ka gaartay aniga waxaa la moodaya inaad tusaale u noqon dhalinyarada dhegeysanaysa صح يعني هدفك أد leedahay ama maxaad soo qabatay dhalinyarada maxaad dhiirigelinaysaa dhalinyarada kale see wax uga dhalin kartaa oo talaa ku siin kartaa waxaa laga yaabaa dadyo badan ama haddana daawanaya lala socdo ilaa iyo saacadan dheer soo daawanayay in aniga iyo tusaale qaato ama adiga kaa tusaale qaato ama adiga kaa tusaale qaato hadda wixii aad soo qabatay aniga ahaan waxaan dhihi karaa achievementka aan soo qabtay ama waxyaalihi aan kusoo guuleystay inaan buug qoro waa wax ugu weyn hadda aan qabtay aan dhihi karo waxaas baan qabtay dadkina ay caddeyn tahay wixii aan qabtana waa kan waa hayaa ya waa caddeyn buugga waxaa la yidhahdaa burburi gaajada burburi gaajada good book waa kasto wax bisayda wax sameynayo marka waxaasi horta wax ma ahan si fudud aan ku qoray tusaale kale hadda marka barnaamijka bilaaway caqabadooyinkii waxaan ka bilaabay dulqaad inaan lahayn anina buug qoro hal maalin kuma qorin hal bilna kuma qorin ma garatay wax xilli badan aan u fadhiyay xitaa waxaa xasuustaa buuggan qaabka u qoray xitaa qaab wuxuu very hard xilliga aan bilaabay iyo xilliga aan dhamaystirna waxa u dhexeeyay waqti aad u dheer muddo hal sano iyo 3 bilood hal sano iyo 3 bilood macnaheedu ma maalmo dhinac qoray mar waa ka caajisay mar ku soo laabanay mar ciwaanka iyo mowduuca ay qaldan wax baan sixin wixii baan isku tagtagay waxa laga yaabaa hadafkii ama wixii aad doonayso inaad qabato in waqti kugu qaadato waqtiga dulqaad u baahan tahay mar waa ka caajisi aja ka caajisay ma inaad wixii give up garayso babkiis ku xirto inaad ku soo laabataa wixii qaabka duwad wax ka bedeshaasi qaabka wax xamaasad badan aad u samaysaa wixina kugu fududaato ida marka buugani aqoon badan kala kulmay oo waqtiga ah in waqti u qaadato dhaqaalo أنا ميل أنا أحيو طبعا قف المسير يعني ميلاد إسكع عابين كذا لأنه واحد بوشة له وذاك يسا بوشة واحد تيله وباهنتاي دخاله وباهنتاي هاد تكسب جيسه وحال إنه والله كومي قاركودون حلي قاركودنا يقول محلين وحلين دانات وحسيفوت كحل اسمه ما أحد يمكن أنا وحقره وواحد أقومي مثلا أنا هدف كوي أنا ما أنت تاجنا هاي ذكرنا أن لو ذاك وياه هو كلا تبي مني وأنا داري دانا marka waxaad kula wadi kartaa qofka dhalinyarada ah inuu hadafka uu leeyahay uu ka meel keenaan okay dulqaad ma koowaad waxaad qabanaysaa ma yahay wax adiga ka go'an tahay inaad qabato wax ma aha meel ka soo aragtay oo si fudud waxaan qaban karaa iska dhawo wax ka go'an ma yahay kana ninba hadda ka hore wuxuu dhahay waxaan roo inaan lacag sameeyo nin oday u tagay okay numar uu dhaha marka uu soo waday wuxuu geliyay badda dhexdeeda kala barkii markii la maray madaxiisu gudaha u geliyay daqiiqado badan buu ku hayay hamar marka soo qaaday wiilkii wuxuu soo baxay naftuuray oo ay naqasku ku xirmay markaasuu dhahay waxa u baahan markaan biyaha kugu dhaxay inaan neefsado si aad ugu baahan tahay yani si aad ugu baahan inaad neefsato oo kaliya inaad ugu baahataa waxaad doonayso inaad wax fudiso in baahi saas kood inuu ku muuqataa inay jirto wax ma aha si fudud ma iska jiif garanayso laana waxa give up keena waxay tahay waxaan fudud ba ku gashay ama diyaar maadan u ahayn waa inay ku muuqataa baahiyaasna aad wax walba u huri karto wax walba diin iyo dhaqankaaba ka horimaan aad u huri karto diyaarna u tahay so ninka dhalinyarada ah ee Soomaaliga ah ee 20 sano ilaa 30 sano u dhaxeeya dadaal iyo juhdi uu samayn karo ku qorbo ku curiyo waxa uu samayn karo waa hadii dulqaadkii leeyahay hadii waxaan uu qabanayo waxay ka go'an tahay tahay hadii waxaan uu qoraayo wuxuu qori karo ee taa aqoonteeda leeyahay laana English ka qoraayo wuxuu u baahan baaritaan u baahan akhris badan u baahan yahay wuxuu baahan dhafar badan u baahan ana waxa xasuustaa buug gacan baa ku qoran marka hore hadana computer ku qoray which markaan bilaaway يعني فرصة ميس إن الكمبيوتر كويس وحكو قرا مكان بوجو بالله كان بحكو قرا كدي واحد تجي مكان بوجو أنا مستري سابرة تجي يعني الدقة العالية خذها سابرة قرا ها يعني إن بوجي عن سوق قرا قعدت عن قرا سوق قعدت أسجرب ديو كمبيوتر عم بدوز دو أنخره ساعدي بو يعني أما ساعدي بحلي يحسب الدقة دي بلي يحسب إيه أو العقب في أنا بدنا كمبيوتر روح كسو كسي دعوة مركب وعاوز اللي ذكر
computerkaas ama serverkaas waxaan dul fadhiin jiray 10 saacadood yani full day kaliya ilaa waxaan ka wadaa 4 saac 3 saac maalintii waa 10 saac kaliya waxaan bixi jiray xilliga salaada aadayo ama xilliga waxaan soconay ama soo ilaa kursigan ku soo laaban jiray inaan wixii aan qoro marka muddo 10 maalin gudaheeda waxaan dul fadhiyay computer muddo yani 10 saac 10 saacadood computer qora ya 10 maalmood min 10 saac من 10 saacadood xisaab markay dulqaadka ma leedahay markay waxaa loo baahan yahay wixii aad qabanayso wado walba kula goosho inaad u dul qaadan karto haddii dhaqaale xumo kula goosho inaad u dul qaadan karto haddii aad aqoon darro kula goosho inaad aqoonta u yeelan karto waxaan haddii aad kula goosho inaad waxani waqti u baahan tahay lana waxa la qaba waqti u baahan jiro oo si fudud ku dhamaaneen buugga noo kale wuxuu u baahan yahay qoritaan baaritaan design u baahan yahay daawacad u baahan yahay waxaasna wax ma ahan hal bil iyo laba bil ku idlaani karo qoraalka laga inaad qaado ku dhawaad dhowr bilood qofka dadaala adiga shakhsi go'aamad ku dhalatay qoritaanka go'aamo u dhalatay ma okay family-ga miyaa mise adiga waa wax aniga ugu dhashay hadii jeer waxaan ku baraarujiyaa inta badan asxaabta aan la kulmo waxaa jira dareemo xilliga qaar nagu dhasho ama waxay qaar aan dareeno oo u baahan inaan fiiro gaar u yeelano ama dhacdooyin qaar aan la kulmayno oo u baahan inaan fiiro gaar u yeelano waxani aan sawirno wax weeye maskaxdayna ku soo celino marka aniga dareen baa igu dhashay inaan wax qoro dareen baa igu dhashay waxa aan qoraa ma garanayo wixii luqadda ku qoraa ma garanayo xilliga aan qoraa ma garanin dareen baa igu dhashay inaan wax qoro ay igu dhashabo maalin la iska dhex arkabo ma garatay marka inkastoo aqriska waxaan isku diijin wax aqriyo marka wax aqriso yani qofku wuxuu juhdi geliyo ama wax baa ka helaysaa inaan wax qoro baa igu dhalatay wixii aan qoraa ma garanin marka kadib inaan wixii baaritaan si sameeyo dareenkaas igu dhashay inaan baaritaan ku sameeyo si kala shaandheeyo waxa qoraysaa luqadda ku qoraysaa doorma qoraysaa wala bilaabaysaa ilaa intee ku yani ku waqti intee ilaa ay mataqaanta qaadanaysaa waxaan xasuustaa caqabadooyinka aan la kulmi jiray waxay tahay mid kamid ah horta aniga inta badan dhalinyaradu waxay asxaab leeyihiin dhalinyaro kale Soomaa dhalinyaradu marka inta badan wax ma akhriyaan inta badan maanta casrigan la joogo wax ma la akhriyo markaan ku dhaho wax baan qori rabaa ama wax baan soo wada inaan qoro buug baan soo saar rabaa qaarkood igu qosli jireen qaarkood ilaa ay jireen buug ya akhrishani maxaa lagu fulay buug la qoray qaab noocaasi adiga wax ma ay qori kartaa haddana maadaama buug af Soomaali ku qoray af Soomaaliga inta laga haykin Ingiriis daan la beer ahaan leed laakiin af Soomaali inta laga haykinaysa mid kamid ah caqabadooyinka waa marka haddii waxaan dhab ka tahay wax markiis يا حديث اللي كتب كأهين برضو أسكو حري يا إن سوق على مين سامر جرو حاجة أنا أصحابنا أنا because كانت كل ولا قصة بس بو يعني كافي العلم يعني يربى له ولا يجيبوه بنقرأ كلها ميكي لقى صوتك أنا ولا كلا واسقاس أوتك أتخير على غيرك أتخير حمدي محمد بوك بقرأ وحقرر تعوداي وحقرر تعوداي حقرر بوك شمال أقرأ لو أري يقولي يعني لو أري بيجي لو أسأله وحاجة دين إن بوك لما يصير ما أنت بوك لما يصير نقول إن أكو جلس لو أري أو أيام صوبه إنك صوب إنك سيجران صوبك لو أنا وح يا إنك سيجران وح أنا وح يجو أنا أوي هاي لكن وح أنا بحسيب والله يسوي تجلي وحنا هاد راح تكون فكرت وعايز ضد بدنا نكون فكرين وحنا قوانيسا وعايز ضد حسن ضد بدنا قوانين كريم marka hadii jeer dareemada ama dhacdooyinka la kulmayso fiir gaar u yeelo si aad yani aad shaqo qaadato ama aad shaqo qaadato marka achievement kada ugu weyn aad gaartay waxa way buug kooban inaad qortay buug kale aad gudaha dhex soo jira waa soo wada magaciis miskoo dhici karnaa ma noo sheeg magaciis kaas dhanadu mula hadlaya dhanadu mula hadlaya waxa hadda ka hadlayn mu ka hadlaya wax lamid ah hasta waagi horeysay music igu horeysay experience waxay ahayd learning experience wax oo heer aan soo maray waxay nolosheed kamid oo waa arrimo ku soo qaatay aan dhihi karo waa baadi aan ka imaaday magaalaan soo galay waxa igu horeysay biyo juice aan cabwaagi horeysay aan xasuustaa music aan maqlaagi horeysay aan xasuustaa TV aan cabwaagi horeysay aan xasuustaa I'm serious I'm dead serious waxaan xasuustaa markaan saa baadi uga imaaday magaalada ugu horeysan imaaday ayaa waxaan arkay makhaayad baan soo galnay raadiyaha meesha ma saaraa raadiya yaa saa u saaraa meesha cajalad baa ku jirtay صح hees baa ka daaray cajalad raadiyaha wuxuu kor saaran yahay waxaa ka hooseeyay meel saro saa u saaraa juuskan wareega ka koreeyay juuskan isku jira qarihii iyo cambihii iyo wareegay صح marka kaasuu raadiyo kor saaran yahay
heesta markaa saa usoo fadhiista hotelkii wiil baadii kala keenay baan ahay waxaa dhacday waan yaabay waxaan u haystaa raadiyahan iyo biyahan wareeg inay hal shay yihiin inay sotaan baa one unit ay yihiin u malinaya waxaa dhacday very interesting heesta waa uma maqlayaa af Soomaaliya tan fahmaya waxaa heestay Samatar Xasan Aadan Samatar heesta Ruqayl dhihi jiray Ruqayl ilaahid ba heesta ku jirnay waan maqlayaa in waxaan yahay laxanka music waan la yaabanahay waxaan maxaa igu cusub yahay cabbaar ban fiirinay raadiyihii iyo waxaan fiirinayaa juuski wareegay iyo wixii waan yaabanahay odayna la socday ayaa markaa u dareemay xaaladdan ku jiro inaan yaabanahay waan yaabanahay biyo waiterkii uu wacay biyihii buu keenay wuu dhiibay marka marxaladda waxaan ku sumanahay moment waxaan ku jiraa yaabanaha shock aan ku jiraa cultural shock ay ku dhacay macnaha isbedelka ay ku dhacay hal mar waxaan sax xaggan iyo xaggan isbedel baa ay ku dhacay mugta hal mar biyihii baan qaaday waa macaan khatar waajiis waa la habeeyey haddii markii la dhihi lahaa biyahan jannada laga keeno waan aamini lahaa saanu ahaa naiif micnaha anu ahaa igu cusbaa magaaladaan sodoo kasoo galaan xaasin waxbaan bartay alxamdulilah secondary markaan dhameeyey waxaan gelay aviation baan galay civil aviation aan sameeyey anigii baadiyaha ka imaaday markaan secondary ka baxay aviation baan sameeyey waxaan galay markaan jaamac intaan qalin jabinin baa iskuulka wuxuu noo sameeyay program arday aan ku jiro airportada internationalka ah Kenya in lagu soo wareejiyo isbuuc JKI isbuuc baan joognay Kisumu International Airport isbuuc baan joognay Mombasa isbuuc baan joognay ardaydii marka waxaa lagu kala sameeyay qaar ba meel baa lagu assign gareeyay qaar waxaa laga dhigay cruise cabin crew baa yaa loo diyaariyay qaar waxaa loo diyaariyay kuwan airportka ka soo daaya ka hadlaan announcement ka sameeyaan baafin ka hadlaan macnaha ani waxaan ku jiray qaybta loo diyaariyay kuwan diyaaradda haga air traffic control yaa ku jiray marka waxaan sameynay aniga keligii iyo macallin ninkii markii mas joogay ee ATC ga joogay iyo gabar anigii shakhsiyan oo dadii baadikeen adiga diyaarad kiciyay soo dejiyay dhulka keenay marka ana waxaan kala achievement ugu weyn ee sameeyay waxa way aniga hore baadikeen imaaday in aan diyaarad dhulka kiciyay hawada geeyay safely aan diyaaradii soo dejinay dhulkan ku soo dejiyay adiga meel joogo ما لكن يعني هدي أنا معقول تقف في حدود وكمر دالين كران وكمر دالين مركا سؤال ugu dambeysaro inaa ku weydiiyo صح يعني waxaa noo sheegtay taas waa mid صح talabaadna waa inaan guursadaan oo dhalinyaro ah taas ku sawada in aad inaan guursaday Abu Ubayd tahay alxamdulillah aan guban aan la daleeyahay marka xalay ka aan dhalinyaro ah waxa la sameyn karaa waa dhalinyaro madama dhiirigelin barnaamijkan uu yahay أنا لو جرب بديها تلقيها. صاقر مقالة ضحك نقولك مالها. واحد برانكرتين. صح. مركا صاص لي كرا. قفك مركا. وين انقاره. هدفك واد كاميرا دالسي. أما هدفك على هيدا ما وحي أد مركا ربتينا سميسو. وقت سند إيو سند لو ما نكوي مالها. سند بدن يسوق هذا. تبني سنة يكبدن. ما حد سدي كرتا قفك ربي إنه هيركا جارو. ومهم إن الله هذا. قيب dhigto ama mar walba aad wadato si aad hadafkaada u gaarto markii aniga aan imaaday ilaa waqtigan macnaheedu ma ahayn in noloshaydu ay ahayd straight ahayd ma ahayn caqabad badan baan la kulmay hadii oo meelo badan ka yaa la kulmaysa marka kow waxa uu horta qofka rabitaankiisa inuu rabo noloshiisa inuu bedelo oo wax barto ama wax shaqeysto laba isku day inuu sameeyo saddex dulqaad inuu sameeyo marka aan saddex xasmaasha ilaa ugu muhiimsantahay adiga lagu imaan marka waqtigaaga waay maxaa ka jirta marka achievement ugu weyn ee isgaartay noloshaada aad gaartay dhalinyaro yar baa tahay ha ama short term plan waxaan okay waxa as dhihi karo hadda nolosheeda because qofka noloshiisa waxa waaye balaaran tahay 20 sano hadda waan ka wada weynahay qof walba marka waqti waxa jiro wax hadaf ku ahaa oo aad gaartay in aysan hadda wax weyn ku lahayn ama adii waxa laga 15kii waxaad sameysay oo 2013 aad haminaysay in hadda markaad u sifiirso ama saameyn weyn ku lahayn ama aan isdhihi karin inuu noloshaada wax badan ka qabatay laakiin haddii aan isdhaho 2 sano ama 3 sano ama intaan yani soo akhlistay wax ugu weyn ama hadafka aan gaaray horta shakhsi ahaan in aan
isku dhiirada aniga keligay in aan wax qaban karo صح taasaa waxay ibaday in waxyaalo badan oo marka aan yaraa ama dabcan aabaha uu gacanta kugu haya ama isku arday aad tahay aadan dhiiran karin oo aad ka cabsanaysay صح in ragtinimo aan isqaaday horta aan dhihi karo aniga wax waan qaban karaa nolosheena wax waan ka qabsan karaa taasaa marka igu weyn waxa nolosheeda aan qabtay oo as dhihi karo nolosheeda bedeshay laakiin haddii aan fiiriyo dhowrkii sano soo dhaafay waxaas dhihi karaa kow horta in aan waxbarasho ku laabtay ama jaamacad صح aan anoo jaamacad baranayo wave markaa waxaa socday waxbarashada muhiim ah way dhacday dhaweydo sii jirtay way jiri jirtay Waxaa lagu- Bill Gates waxa waaye Elon Musk wax ma baranin inuu qadyada noocaas oo kale ah Qadina- keligaa wax noqon kartaa waa noqon kartaa laakiin cilmiga waa muhiim in horta kuwa aan dhahay jaamacadan ku laabtay ama aan waxbarashadeeda aan wato waa astaamaha ugu weyn oo nolosheeda as dhihi karo guul weyn aan ka gaartay ana aaminsanahay dhowrka sano soo socoto ama 10 sano soo socoto guusha aan rabo oo inuu ultimatumka inkastoo ay ahayn laakiin Meesha meel kale. sare in ay gaarsiin karto talabaad waa in aan horta xisbigan aan kusoo biiray Somali Mira Somali Mira ayadoo oo marka ayada ah qof walba oo annaga naga mid ah صح oo keligiis gees oo qadyad ama inuu shucuur ay u haysay صح in aan isku imaano oo wada sheekeysano oo aan aamino in aan bulshada wax gaarsiin karno صح geesinimeen u baahneed rag badan ama dad badan oo nagu jiray ama dad badan oo loo bandhigay geesinimada la imaan weysay in aan geesinimo isbedo aan ummadda wax gaarsiin karo ama aan ummadda wax kusoo kordhin karo inaan soo galo in aan company aan leeyahay aan furo dabcan oo aan aniga ku shaqaysto ama aan rajeynaa in aan si fiican uga miro dhaliyo oo yani qof hanti leh yani hadda markii hantidii laga hadlayay markii aan bilaaway waxaan ku fikiray 3 months maxaa qaban kartaa 6 months maxaa qaban kartaa 1 year maxaa qaban kartaa 2 years maxaa qaban kartaa labadaas sano in aad dulqaadan karo aniga oon shil helin inaan haddana company ayada aan juhdi ama dadaal aan geli karo marka saddexdaas ay ugu muhiimsan qofka haddii aan aniga maanta qof wax ku dhiirigelinayana waxaa waaye kutubka quraanka inuu gacanta midigta ku qabsado yani kutubka quraanka markaa dhahayno kutubka kelima yani cibaadada iyo xididka ilaahay qofka gacanta midigta ku haysto waxa xaqiiq ah inuu adduunka ku liibaanayo aakhirana ku liibaanayo yani markii hadda jumcada hadda khudbaan dhageysanaynin qofkii salaada ka tago adduunka uma yaalo guul markii la aadaamayo xaya cala salaa xaya cala alfalax liibaanta kusoo dhawow waxaa la sheegi jiray taabici oo kapenta ah asagoo musbaarka ku hayo dhac hadduu ka siiyo allahu akbar hadduu maqlo yani meesha uga tegi jiray yani salaad marka in salaada lagu xirnaado kutubka quraanka lagu xirnaado ilaahay lagu xirnaado tasbiixda iyo adkaarta iyo tahajjudka iyo cibaadada ilaahay lagu xirnaado talabaadna waxaa waaye horta in dulqaadka leeyahay qof walba taas waa muhiim yani wax walba waxa asal dhiga u ah waa in ninkana soo gabagabeeyay leeyahay waa iska dhameyn doonaa in dulqaadka la leeyahay laakiin in uu qofka uu ilaahay ku xiran yahay in uu dulqaad leeyahay inuu cilmi raadiyo cilmigana ma buug iyo qalin bas yani mar walba maskaxdaada aad weynin karto oo fikradaada aad balaarin karto mar walba waa aragnimada ay ku kordho marka saddexdaas ugu muhiimsan asleeyahay marka waxaan rajeynaynaa insha Allah kuwan iyo su'aalo noocan oo kala badan in la iskugu imaado oo loo baahan yahay in marka dhalinyarada laga wacyigeliyo ama la isku anaga intaan hadda iswaaninayna intaas